bismillaahi raxmaani raxiim meel walba joogtaan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn warka xogta TV waxaana kamid ah ciidamada militariga Soomaaliya oo maanta go'doomiyay wasiir jaran ugu sugan Mandheera iyo xiisad dagaal oo ka taagan xadka u dhaxeeya labada dal xubno ka tirsan Al-Shabaab oo dil iyo dhaawac lagu geystay gobolka Gedo dawladda Kenya oo warkalo ka soo saartay eedeena dawladda Soomaaliya u jeedisay Soomaaliland oo sheegtay inay karantiishay dad looga shakisan yahay coronavirus macallin Maxamuud hogaamiyaha Hulusuno ka baxay heshiis wada galeen isaga iyo qorqor fadhina ka dhigtay Puntland ciidamada dawladda oo hubkii ugu balnaa abid kala soo baxay guriga wasiir jaran iyo xilligu lagu dhawaaqay xildhibaanada koonfur galbeed oo la shaaciyay waa galab isniina taariikhda ay ku beegantahay labada bisha 3 Maarso sanadka 2020 inta maqashan iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno gobolka Gedo wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegay in xalay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Baardheere ee gobolkaasi dagaalku ahaa mid culus la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ay yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala gudaha degmadaasi weerarka ayaa waxa lagu soo waramaya in uu xigay isku horimaad toos ah oo dhex maray ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya iyo raggii weerarka qaaday kaasoo la isku adeegsaday hubka culus saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo la hadlay warbaahinta ayaa guulo ka sheegtay dagaalkan iyagoo sheegay inay ka warhayeen weerarka kana hortageen sidoo kale saraakiishan ayaa tilmaamay in dagaalkaasi ku dileen hal xubin oo ka tirsan Al-Shabaab mid kalena ay nolosha ku qabteen sidii hadalka u dhigeen dhanka kale ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay intaba xaaladda ayaa maanta degan waxaana goobihii lagu diriiray ku sugan ciidamada dawladda oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi xal marka waxa dhacday ayuu dadka qabanay si caadi marka loo xaqiijinayo ciidamada magaalada ay ku jiraan oo meelaha mutaqana baaritaan ay ka socdaan ayaa laba nin oo dhalinyaro ah ciidamada mutaqana oo socday in ciidamada qoftaan isku dayeen in taqaan la qof walba oo socdo markay ciidamada socdaan waa la xaqiijiyay mataqaana hay wuxuu wadana waa la baaraa xaqiijin la qabto la damcay oo istaag la yiri nin kamid ah mataqaana hay xabad bilaal baad socod inuu soo rido sidaas mataqaana ay ku asaa ku dhintay meesha kii kale asagoo nool ah xiriirsan gaarin bay ciidamada gacanta ku dhigeen hada taalada iyo la mataqaana taalada magaalada bartay taalada ay yeeleen ciidamada soo dhigeen hada kaga mataqaana hay meesha laga qaadaya waxa weeye loo dambeeyay loo basay nimanka isku kala hogaysnaayeen waxayna doonayeen mar inay dil magaalada ka fuliyaan sidii mataqaana ay lagu haydo inta badan mataqaana magaalada ka sameeyaan sidaas ay tahay gaariyahanada Al-Shabaab ayaa inta badan weerar gaadma ka fuliya Baardheere iyagoona dhawaan ku dilay ilaa 3 gudoomiye Baardheere xaafado ka tirsanaa maamulka degmadaasi kuwaas oo midkood midi lagu gooracay xilli habeen ah toddobaadkii ka soo gudumay danka kalena hadii aan fiirino xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan magaalada Mandheera iyo balad xaawo inta u dhaxaysa ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwii xamar laga qaaday ee gorgor iyo haramcad ayaa go'doomiyay sida la sheegayo xire ay ku sugnaayeen ciidamada hogaaminaya wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dawladda Soomaaliya ciidamadan oo wata hubka culus iyo gaadiidka dagaalka ayaa xirada BB1 oo ku taala inta u dhaxaysa Mandheera iyo balad xaawo waxa ay ka qabteen isweer waxaana gudaha xirada ku sugan ciidamo fara badan oo hogaaminayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan xaalad dagaal ayaa ka taagan halkaasi waxaana laga cabsi qabaa in labada dhinac ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda ay kala hogaaminayaan saraakiisha dawladda iyo wasiirka amniga Jubbaland oo baxsad ka ah dawladda ay halkaas ku dagaalamaan xiisada ka taagan halkaasi ayaa sababtay inay barakacaan dadkii ku noolaa inta u dhaxaysa Mandheera iyo balad xaawo oo ah magaalooyin daris ah kuwa oo ka kala tirsan Soomaaliya iyo Kenya geesta kale waxa faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan howlgal ballaaran oo xariiq ciidamada dawladda federaalka ay ka sameeyeen qaybo kamid ah degmada Doolo oo ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya howlgalku waa mid qorsheysan ayaa waxay ciidamadu ku galeen hoyga wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ku yaala gudaha degmadaasi saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 2 qoray oo ah kuwa loo yaqaan BKM-ka iyo qoryo kale oo aad u badan sidoo kale waxay intaas ku daray in guriga wasiir Janan ay kala soo baxeen rasaasta noocyadeeda kala duwan oo aad u fara badan sidii hadalka u dhigeen saraakiisha dawladda ee ku sugan Doolow ila deegaanka ah ayaa sidoo kale inoo sheegay in ciidanka baaritaanka waday ay isku gadaameen guriga inta uu socday howlgalka iyagoo markii dambe iskaga tagay halkaasi ilaa ay haatan lama oga sababta rasmiga ah ay ka dambeysay howlgalkaasi lagu beegsaday hoyga wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo baxsadka ah dawladda dhexe kaasoo hadda ku sugan qayb ka mid ah magaalada Mandheera
si kastaba ahaatee xiisad iyo dhaqdhaqaaqyo militari oo u dhexeysa labada dhinac Jubbaland iyo dowladda ayaa si xoogan maalmihii u dambeeyay looga dareemay gobolka Gedo gaar ahaan balada Xaawo oo ay isku horfadhiyaan ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland maalmo ka hor ciidamo ka tirsan Jubbaland oo aad u fara badan watana gaadiidka dagaalka ayaa soo gaaray balada Xaawo kadib markii ay ka soo ruqaastadeen deegaanka Dobley ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Madooban oo ku sugan yahay dowladda Soomaaliya ayaa haatan si buuxda u maamulaysa inta badan degmooyinka caanka ah ee gobolkaasi sida Luuq Doolow balada Xaawo Baardheer iyo Garbaharey markaana aan Galmudug Macalin Maxamuud hogaamiyaha Ahlus Sunna wal Jameeca ayaa shalay galab gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug kadib markii looga soo adkaaday dagaal maalmo ka hor Dhuusamareeb ka dhacay diyaarad qaas ah ayaa macalinka ka qaaday Dhuusamareeb waxayna ka disay garoonka Gaalkacyo dhinaca Puntland iyadoo ku sii aadi doona magaalada Garowe caasimadda maamulka xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegay in Macalin Maxamuud hogaamiyaha Ahlus Sunna uu ka baxay heshiis ay gaareen odayaasha beesha ceer iyo madaxweynaha dowladda aqoonsanta ee Galmudug Qorqor wuxuuna ku sii wajahan yahay Sacuudiga macalinka ayaa damacsanaa inuu ka baxo Muqdisho balse cabsi laga qabo in la xiro ayaa lagu heshiiyay inuu ka baxo magaalada Garowe ee Puntland waxayna arrintaani timid dalab ugaaska beesha ceer uu u gudbiyay madaxweyne Qorqor ayaa damaanad qaaday ammaanka Macalin Maxamuud ilaa uu ka baxo Soomaaliya waxaana haatan la socda مسعود iyo koox ciidamo kuwaas oo geen doona Garowe waxaana kadib u safri doonaan Sacuudiga dowladda Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay isku dayday inay Muqdisho keento Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir si ugu xirto balse ma dhicin waxaana guuleystay dadaal uu sameeyay madaxweyne Qorqor ayaa doonayay in si toos ah uu soo gabangabeeyay xiisadda Galmudug isla markaana u guduggalay sidii maamulkiisu u shaqo bilaabi lahaa taasoo keentay in wax walba u fududeeyay madaxda Ahlus Sunna ee looga adkaaday dagaalkii Dhuusamareeb markaana Somaliland ayaa sheegtay inay karantiishay dad looga shakisan yahay coronavirus xukuumadda Somaliland ayaa shaacisay inay karantiishay dad ka yimid dalka Shiinaha oo ah halkii ugu horeysay uu ka dilaacay fayraska halista badan ee corona Somaliland ayaa xaqiijisay in muddo 14 cisho ah ay meel gaar ah ku karantiishay dadkaasi ka yimid Shiinaha si looga baaro fayraska isla markaana loola socdo xaaladooda iyo wixii ku soo kordhay muddadaasi saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka Somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadkaasi ka yimid Shiinaha ku karantiimeeshay goobo ay wasaaraddu ku hirgelisay gudaha madaarka Cigaal ee magaalada Hargeysa saraakiisha ayaa sidoo kale waxay ka dhawaajiyeen in dadka ka yimaada Shiinaha si gaar ah ugu baaraan isla markaana muddo 2 toddobaad ah ay ku hayaan goobaha wasaaraddu ugu talagashay iyadoona gabi ahaanba la joojiyay in wax xiriir ah la sameeyaan dadka waxa kale oo ay sheegeen in dadkaasi ay karantiimeen si aad u ilaalinayaan isla markaana ay ka ilaalinayaan in ay cid la kulmaan ama xiriir la sameeyaan saraakiisha wasaaradda caafimaadka ayaa wax kale u beenisay in dadka yimid Shiinaha oo si fiican loo baarin ay gudaha u galeen Hargeysa sidii caasimadda Orlen ogaatayna weli ma jiraan dad ay karantiishay wasaaradda oo looga helay fayraska halista badan ee sida xooliga ah ugu faafaya caalamka dowladda Kenya ayaa beenisay inay faragelin ku hayso gudaha Soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya ayaa lagu beeniyay eedeymo ay dowladda federaalka dhawaan u soo jeedisay dowladda Kenya oo ah inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya dowladda Kenya ayaa ku tilmaantay eedeymahaas kuwa been abuur ah oo la doonayo in lagu weeciyo horumar la'aanta ka jirta siyaasadda Soomaaliya Kenya waxay diidan tahay eedeynta aan sharciga ahayn salka iyo baarka aan lahayn ee kaga timid dowladda federaalka sidoo kale waxay si cad banaanka u istaagtay eedeymaha loo jeediyay ee dowladda Kenya waxay ku tilmaantay mid muuqaalkeeda lagu ximeenayo lagana leeyahay dana gaar ah danjiraha Soomaaliya wakiilka u ah qaramada midoobay Abuukar Daar Cusmaan Baalle ayaa jimcihii aan ka soo gudubnay sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in si rasmi ah cabasho karana dowladda Kenya ugu gudbiso golaha ammaanka qoraalka ka soo baxay dowladda Kenya ayaa ku soo beegmay xilli shalay ay dib ugu laabteen magaalada Nairobi xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doortay gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo magaalada Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaana Koonfur Galbeed xilliga lagu dhawaaqay xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa la shaaciyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa haatan ka socda dardargelinta howlaha soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xubnaha guddiga madaxa bannaan ee soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa odayaasha dhaqanka waxay wadaan kulamadii ugu dambeeyay si gudaha bishan liiska xildhibaanada lagu dhawaaqo qaar kamid ah xubnaha musharaxiinta ah ee doonayay inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa dhankooda waxay dadaal ugu jiraan sidii uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyagoo wada kulamo kala duwan gudoomiyaha guddiga farsamada madaxa bannaan ee soo xulista Koonfur Galbeed Maxamed Kiiro Maxamed oo warbaahinta kula hadlay Baydhabo ayaa sheegay in liiska xildhibaanada ay ku dhawaaqayaan inta u dhaxaysa 12 bishan ilaa 19 sida ku qoran jadwalkii la soo saaray
daawadayaal waa naga intaa warkii aad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan